maalinta isniinta maalmaha kale maxay ka fadli badan tahay? nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam acmaal gooni ah miyuu samayn jiray? alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah. walaalayaal darsi jaalmeel adduunkaad ka joogtaan, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. berri waa maalin isniin. maalinta isniinta maalmaha kale maxay ka fadli badan tahay? oo nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam muxuu samayn jiray, muxuuna ku sheegay? su-aasha koobaad oo aan ka jawaabayna waxay tahay, maalinta isniinta maxaa la sameeyaa? xabiibkeena muxamed sala allahu calayhi wasalam muxuu samayn jiray? annagana muxuu nagu booriyey inaan samayno? walaalayaal, xabiibkeena muxamed sala allahu calayhi wasalam maalinta isniinta wuu soomi jiray, oo axaadiid badan ayaa ka soo aroortay nebiga sala allahu calayhi wasalam inuu soomi jiray. haddaba muxuu u soomi jiray nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam maalinta isniinta? abuu hurayra ayaa xadiidka warinayo, wuxuu leeyahay, qaala rasuulullahi ku salli sala allahu calayhi wasalam, tucradu alacmaal yowma alithniin wa yowma alkhamiis. acmaasha ilaahay waxaa loo bandhigaa maalinta isniinta iyo maalinta khamiista. fa uxibu waxaan jeclahay an yucrada camalii wa ana saa'im. waxaan jeclahay camalkiyga markii ilaahay loo bandhigayo anigoo sooman. xadiidkana saxiix jaamac ayuu ku jiraayo, waa saxiix. xadiidka labaad, caaisha ayaa warinaysa radia allahu canha, oo waxay leedahay, kaana rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam, magaca nebiga markaa maqasho ku sali, khayr allah ku siiye. nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu yataxaraa siyaam yowma alithnaini waalkhamiis. wuxuu aad ugu dadaali jiray soonka isniinta iyo khamiista. xadiidkan ibni maaja ayaa wariyey, saxiixa targhiib wa targhiibne waa ka helaysaa insha allah tacaala. xadiidka saddexaadne, abi qataada al ansaari ayaa wariyey radia allahu canhu, wuxuu yidhi, nebiga ayaa la weydiiyey, maxaad u soontaa maalinta isniinta? wuxuu yidhi, fiihi wulidtu wa fiihi unzila calaya. waa maalintaan dhashtay iyo maalintii igu soo degtay waxyiga. saddexdaas xadiid waxay inoo sheegaysaa marka xabiibkeena muxamed sala allahu calayhi wasalam maalinta isniinta wuxuu samayn jiray, oo ah inuu soomi jiray. maalin walboo isniin wuu soomi jiray. sababtu u soomi jirayna xadiidkii koobaad ayaa inoo sheegay. idan maalinta isniinta iyo khamiistaba waxaa fiican in la soomo, oo sababta loo soomayo rasuul sal alay wasalam ayaa sheegay, wuxuu yidhi, waxaan jeclahay camalkiyga in ilaahay loo bandhigo anigoo sooman. sidaa darteed soonka badi, soonka faa'iido badan ayuu leeyahay. su-aasha labaad, maalinta isniinta maalmaha kale maxay ka duwan tahay? waxay ka duwan tahay waxaa inuu sheegay xadiidkii koobaad oo ahaa nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam inuu yidhi, maalinta isniinta iyo maalinta khamiis in ilaahay camalka loo geeyo, loo bandhiga. camalkaa samaynaysa dhana loo bandhiga. wuxuu jecel yahay xabiibkeena muxamed sala allahu calayhi wasalam in loo bandhiga camalkiisa ilaahay asigoo sooman. annagana wuxuu nagu boorinaa in aan soono si camalkeena loogu bandhigo ilaahay annagoo sooman. sooma jeceshid camalkaaga in loo bandhigo ilaahay adigoo sooman? I think jawaabtaada haa inay tahay. sidaa darteed ku dadaal soonka maalinta isniinta iyo khamiista, khayr allah ku siiya. haddaba walaalayaal, berri oo isniin ah iyo isniin walba waxaad ku dadaashaa inaad soontid. soonka fadli badan ayuu leeyahay, oo waxaa sharaf ugu filan inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala yidhi, assawmu lii. xadiid saxiixayn ku jira muttafaq caleyh, soonka anaa iska leh, wa anaa ajzii bihi. ajirkiisana anigaa bixinaayo. acmaasha dhanba ajirkeeda ilaahaa bixi, laakiin soonka ilaahay si gooni ayuu u sheegay. taasna sharaf gooni oo soonka la sii waay. sidaa darteed ku dadaal isniin walba iyo khamiis walba inaad soontid. nebi maxamed sala allahu alay wasalam fiiri, acmaasha markii ilaahay loo bandhigayo wuxuu jecel yahay inuu soomo isniinta iyo khamiista 15 shacbaanka bisha dhammaadkeeda. wuxuu rasuul sal slam jeclaa camalkiisa in loo bandhigo ilaahay asigoo sooman. sidaa darteed ku dadaal, khayr allah ku siiye. beriyo isniin iyo isniin walba inaad soontid ku dadaal, khayr allah ku siiye. allahu khayran, baaraka allah fiikum. ilaahi subxana wa taala ha idin wada xifdi meel walba adduunka aad ka joogtaan. beriyo isniin ah iyo maalin walba isniin soon. walaalaha kalena
أولسي شيرجري أم أسي قد بخير الله جزاكم الله خير بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته